wasiirka cusub ee wasaaradda dib u dejinta ee Somaliland Saleebaan Axmed Ciise Xagle Toosiye waxa maanta si rasmi ah uu xilka ugala wareegay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Cabdirasaaq Cali Cismaan oo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaan dhawaan uu magacaabay wasiirka wasaaradda warshadaha Somaliland waxaana munaasabada labada mas'uul ay xilka kula kala wareegayeen oo ka dhacday hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda ka dhex muuqanayay madaxda axsaabta mucaaradka iyo tiro kamid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee dalka wasiirkii hore ee dib u dejinta Cabdirasaaq Cali Cismaan oo ka hadlay halkaasi ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xubinta cusub ee ku soo biirtay golaha wasaaradda ee uu ka tirsan yahay waxaana meesha uu ka saaray inuu saluugsan yahay wasaaradda cusub ee madaxweynuhu uu magacaabay قادر وزير كوسارة دوسرة، وأنا كوكولاي وأنا كفرساني، صعب ترى على أنا كيروي، وقت سلام مكشان ووشة، ما نقدر، سلام هني داون وشة، واحد بدري، أنا جاتان وتابو وزير سلام، ما تابو أقول كذي وسارة، أنا واحد أقول كذي بشيتون، لا أقول يقول يقول بشكل سديد وكيف بعد الدراسة إذا صوت يقول يجي ممكن ما عنده واحد ما عنده واحد طبعا وزير سليمان وعندنا وزير wasiirka cusub ee dib u dejinta Saleebaan Axmed Ciise Xagle Toosiye ayaa isna sheegay in si weyn ugu faraxsan yahay xilka loo magacaabay waxaana uu sheegay intaasi xal ay u noqon doonto tabashada deegaamada uu ka soo jeeday bariga dalka isagoo sheegay inuu qayb ka noqon doono sidii xal nabadeed loogu raadin lahaa colaadda ka aloosan bariga dalka waxaan anigu hogaamiyihii ururka SSC baan ahaa weliba waa wasiir Somaliland baan noqday bulshada reer Somaliland oo dhan baan wasiir u horumarkooda iyo nabadooda iyo midnimadooda ka shaqeynaya waxaase u sheegayaa deegaanadii aan ka imid iyo ehelkayga inaan u maqnahay inaan dadaal weyn haddii alla ka dhigo u geli doono sidii loo xoojin lahaa nabadda sidii horumarka looga shaqeyn lahaa sidii xilka loo magacaabay Saleebaan Axmed Ciise Xagle Toosiye ayaa laga soo dhaweeyay meelo badan oo Somaliland ah iyadoo loo arko in qayb ay ka tahay dadaalka xukuumadda Somaliland ay ugu jirto sidii ay u soo afjari lahayd mushkiladaha ragaadiya gobolada bari ee dalka Maxamed Boosh Royal TV Hargeysa.